munaasabada 12 Agoosto dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxay soo mareen marxalado kala duwan runtii fursada hadda ay haystaan waxa jirtay sanado ka hor aysan haysan jirin ama duruufo kala duwan wadanka uu soo maray xilligii colaadaha iyo dagaalada sokeeye maanta waxaa muuqda ifafaalo wanaagsan oo ay haday ahaan lahayd doorka ay dhalinyarada ku leeyihiin dib u dhiska dalka dawladnimada iyo guud ahaan kor u kaca ku socda horumarka dhaqan dhaqaale ee bulshadeena waxa ugu muhiimsan aan isdhihi karo dhalinyarada Soomaaliyeed inay sanadaha soo socda ay wajahaan ama ay saaraan muhiimada koowaad waxay tahay inay dareemaan muhiimada dhalinyarnimada ee u leedahay dib u dhiska dalka dadka iyo dawladnimada fursadaha ay haystaan sidoo kale kaliya inaysan fiirin caqabadaha hor yaala laakiin ay dareemi karaan waxa fursad ee dhanka kalena ka furan in la wajaho oo maaragtay lagu dhaqaaqo sidoo kale waxa muhiimadeeda leh in la ogaado dhalinyarada waxay door wanaagsan ka ciyaari karaan dib u heshiisiinta iyo nabad dhiska oo waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wadankeena hor yaala ay kamid tahay ama muhiimada koowaad leh dal burburay dad kala tagay dawladnimo oo maaragtay laciiftay ama burburtay waxa dib u dhisi kara waa dadka Soomaaliyeed 75% waa dhalinyaro marka hadii dhalinyarada Soomaaliyeed ay gartaan doorka muhiimka ah ee ku leeyihiin dib u dhiska dalkan iyo isku soo celinta dadka iyo walaaleynta iyo midnimada iyo dib u heshiisiinta waxa iyadana kor u soo kici doona dhamaan hawlahaas muhiimka u leh dalka iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay door wanaagsan ka qaadan karaan tayeynta hay'adaha dawladda ka anaga dhalinyarada dawladda ka shaqeysa ama xafiisyada dalka ugu sareeya jooga muhiimad gaar ah noo leedahay fursadana la siiyay waxa waajib naga saaran yahay inaan sida ugu wanaagsan cadaalada leh tayada leh ugu adeegno dalka iyo dadka runtii adeegayaal bulsho hadaan nahay ama dadka u adeegaya bulshada ee ka shaqeeya xafiisyada dawladda waxaana saaran mas'uuliyad gaar ah oo ay tahay in dalka loo shaqeeyo dadka loo shaqeeyo waxa ugu wanaagsan ay tahayna fursada qofka la siiyay inuu ka faa'iideysto laguna xisaabtamaayo aakhiri iyo adduun intaba dalkeena iyo dadkeenana uu qof walba qofku dib u fiiriyo xaaladdu ku sugan yahay waxa laga rabo waajibaadka hor yaala waxaan aaminsanahay dunida way naga tagtay inta burburka ku jirnay inta hadda aan soo qabaneynaba marka saddex xoolaha hor taalo ah inaan wixii naga burburena aan ka soo kabanno isla markaana intii hawada aan ka maqnayno dalkeena iyo dadkeena u burbursaana dunidina dhaaftay iyo fursadihiina dhaafay inaan hadda ka faa'iideysano isla markaana hadda dunida waxay qorsheynaysaa waxa sanadaha soo socda u qabsoomi doona anaga kuwii hore kaliya wixii naga tagay inaan ama naga burburay aan ka shaqeynay waxa soo socdana aan dunida wax la qaybsano dariska wax la qaybsano dhalinyarada Afrika ku nool oo runtii ama ha noqdaan wadamada noo dhow ama ha noqdaan wadamada fog kulli istaraatiijiyad iyo qorshayaal ay ka fikirayaan jirto si la mid ah sidii dhalinyaradaas oo kale anagana inaan qorshaha mustaqbalka laga wada tashto maaragtay qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed uu ku baraarugsanaado waxa ugu muhiimsan oo aan isleeyahay waa in muhiimada la siiyo waxay tahay dib u dhiska bulshada ama human capital ka maaragtay in waqti la geliyo waan dhisi karnaa hay'ado dawladeed waan dhisi karnaa institutions iyo maaragtay hay'ado tayo leh laakiin waxa muhiim ah inaan waqti la geliyo dhalinyarada iyo guud ahaan fursadaha la haysto looga faa'iideysto sidii loo tayeelan lahaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan 75% dhalinyarada marka dhalinyarada waxa saaran mas'uuliyad ah in loo diyaar garoobo mustaqbalka aniga waxaan qabaa waxa ka muhiimsan inaan fursado helno in fursadaha aan u diyaar garoono sidii aan uga faa'iideysan lahayn oo dad u diyaarsan markii loo dhiibo mas'uuliyadaha qaran ama mas'uuliyadaha gaarka ah ama ha noqoto ganacsiga ee dhalinyarada furanayaan ama ha noqoto doorka ay dawladnimada ku leeyihiin ama soo celinta maqaamkii iyo positionkii wadanka dalkan uu kaga jiro dunida waxay ku xiran tahay sida dadka dalkan matalaya ay u diyaarsan yihiin ay u horumarsan yihiin ay u garanayaan fursada la siiyay sida uga faa'iideysan lahaayeen ay u dareemi lahaayeen dadka iyo bulshada ka dambaysa marka waxaan aaminsanahay u diyaar garowga mustaqbalka waa mas'uuliyad weyn oo saaran dhalinyarada iyo guud ahaanba dadka macaahidda iyo jaamacadaha iyo ka shaqeeya waxa dareemi kartaan dunida maanta tiknoolajiyada ay haysato cidda access-ka ugu badan u leh waa dhalinyarada hadda oo wadankeenu uu runtii xilli doorasho ku jiro waxaan aaminsanahay dhalinyaradu rajo iyo maaragtay horusocod iyo kalsooni lagu qabo institutionska ama hay'adaha dawliga ha noqoto ama ganacsiga iyo nabadda iyo xasiloonida dalka uu gali karo ama uu ku jiro dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta door wanaagsan ay ka qaadan karaan ififaalo mustaqbal iyo rajo wanaagsan ayaga abuuri kara waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenku inta badan waxay dhahaan hana la siiyo fursada
waxaan dhanka kale aniga uga aragti duwanahay dhalinyarada iyo haweenka cid fursada siinaysa male dalkoodii waaye ayagaa la rabaa inay qaataan kaalintooda doorkoodii isla markaana ay meel kasta iyo goob kasta ay joogaan u shaqeeyaan ugu dambeyntii dalka runtii muddo badan waxaa kusoo laalaabta abaaro ama ha noqoto dhibaatooyin ka dhasha daadadka webiyada iyo maaragtay marna gaajo iyo abaar marna maaragtay xaalado musiibooyin kale oo dabiici kuwan dabiici ahaynba waxaa ugu muhiimsan oo u baahan in aan wajahana waxay tahay inaan u diyaarsannahay u diyaar garow inuu jiro mar walba dhalinyarada marka Soomaaliyeed fursadaha ay haystaan maanta waxaa kamid ah in hay'adaha dawliga ay ku jiraan inay ku jiraan hay'adaha humanitarianka ama arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya inay jaamacadaha ku jiraan inay maaragtay meel kasta oo muhiim u ah bulshadan ay ku jiraan marka waxaan ku dardaarmayaa qofka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed meel kasta uu joogo meel kasta oo aan ka shaqeyno xafiis kasta ama ha noqoto warbaahinta madaxa bannaan ama ha noqoto ganacsiga ama ha noqoto hay'adaha bini'aadanimada ka shaqeeya ama ha noqoto hay'adaha internationalka dadka jooga ama safaaradaha u shaqeeya ama meel kasta oo wax loogu qaban karo bulshada Soomaaliyeed in qofka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed uu dareemo inay mas'uuliyad saaran tahay laga shaqeyn karo wadankan horumarkiisa iyo dalkiisa kuma xirna xafiisku qofku joogo kuma xirna reerka uu ka dhashay kuma xirna gobolka iyo deegaanka uu joogo waxay ku xiran tahay qofka sida uu mas'uuliyadiisa qayb kamid ah uu wadankan iyo dadkiisa sida lagu horumarin lahaa oo ugu hambeeyo oo ugu shaqeeyo oo uga fakaro marka saaxiibo badan dhalinyaro badan waxaan kala joognaa hay'ado kala duwan ama ciidanka ha noqoto ama civilianka ama maaragtay ha noqoto rayidka ama ha noqoto hay'adaha internationalka ama ha noqoto hay'adaha dawladda meel kasto aad joogtid mas'uuliyad waxay ka saaran tahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo sidii aad ugu adeegi lahayd haddii la iskaashado la hormaro waa laga gudbi karaa caqabadaha taagan marka sanadkan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu waji cusub iyo mustaqbal cusub iyo rajo cusub ay u abuuri karaan dalka haddii ayagoo diyaarsan oo diyaar garoobay mustaqbalka wajahan qorshe diyaarsan ku wajahan waa mahadsantihiin waa u hambaleynayaa dhalinyarada adduunka gaar ahaan dhalinyarada Afrika gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed